waxaanu joognaa deegaanka ceel dhaliile oo magaalada Ceergaabo u jira wax yar oo 5 kilomitir ah beertan aanu joogno waa beertii ilmo Yuusuf Ismaaciil hab dhaxal ah ayay maxkamadda u soo gashay muddo sanad ah ayay dacwadani maxkamadda taalay nasiib wanaag maanta waxaan ku soo afmeernay heshiis walaalaha dhexdooda maxkamadda iyo cuqaasha iyo walaalaha dhexdooda ay isku afkarteen qaybtan sare ee beerta waxa loo daayay maxamed Yuusuf Ismaaciil sida walaaluhu ay cadeymaheeda dacwad ku dhex jira ay ku soo cadeeyeen inta kale xagga hoose naga xiga waxaan u bandhigaynaa dhammaan dilaaliinta ka howlgala degmada Ceergaabo iyo cid kasta oo danaynaysa iibka beertan inay u taagan tahay iib marka la qiimeeyo iyadoo darafyadu dhinaca iibinaya iyo dhinaca iibsanayaba iyadoo ay goobjoog yihiin dilaaliintuna ay qiimeyn doonaan sidaasaan cid walba ugu bandhigaynaa ciddii danaynaysa iibka beertaas waa inay kala soo xidhiidho maxkamadda degmada Ceergaabo si halkaas iyadoo darafka iibsanaya iyo darafkii iibinayay iyo dilaalintii u kala qiimeynaysay iyo maxkamadduba iyadoo ay goobjoog yihiin si ay sifa sharci ugu dhammaato sidaasaan cid walba ogeysiinaynaa maxkamadda dhex taagan anaga iyo walaalahay dhaxalkii inaanu ku heshiinay unoo soo bandhignay intii aanu isaga walaalkii siinay mooyeentii kale waa iib bayna u taallaa suuqana aanu soo dhignay maxkamaddiina wayna dhex taagantahay caaqiladii iyo codkarrada waxaanu siinay maxamed Yuusuf Ismaaciil oo walaalkaya inta kalena waa noo iib maanta waxaanu heshiis ku nahay Yuusuf Ismaaciil iyo waxay dhaleen inaanu dhulkayaga dhaxlanno intaanu abtiga uga tagnay mooyane intii kale dhamaanteed ay iib tahay cid kasta oo u baahanna ay kala soo xiriir karto anaga iyo maxkamadda degmada waxaanu dhex taaganahay beerihii aanu lahayn annagoo ah ilmo Yuusuf Ismaaciil dhaxalkiina waanu u soo taagnay haddii aanu dhaxlanaynona maxkamaddii baana dhex taagan intii aniga gaar ahaan intii laysiiyey tacab waa intaa iga dambaysa waxaa weeye maanta mar haddaanu ku heshiinay oo intii kalena aanu u soo taagnay iib nin kastoo iibsanayana aanu diyaar ugu nahay oo aanu halkaas ugu wada hibeynayno maxkamadduna dee ay og tahay oo iyadu dee ay mas-uulba ka tahay waxaan leenahay waa alla mahadi waana iib intaasi waa iib intaasi oo naga dambaysaana waa intii la siiyey sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa nin kastoo iibsanaya inaanu iib u soo bandhignay intaa